السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كنا برنامج الله وبرنامج حلقة هذه كسر ديارية أنا وأنجلي ربيش مع حسن. ما أنت برنامج كنا وعواد دونا ولو حنبرتك وجرنا قبتي عن وقال لي نسينكل داميشن الأري حنسود ديارية. ما أنت برنامج كان وقال لي write the program to merge two arrays. program isku keenaya laba array kala duwan شوية array 3 data ku jirto array 1 iyo data ku jirto array 2 ayaa waxa lagu shubayaa array 3. tusaale array 1 waxay u jiraan 1 2 3, array 2 na waxay u jiraan 4 5 6. array 3 ina abuurtaa labadan data isku keenaa marka array 1 array 2 array 1 data ku jirto ah 1 2 3 wuxuu ku diraa marka wuxuu ku sii daba qaban array 2 data ku jirto ah 4 5 6. program noocan u shaqeeya camal arabnaa inaan ku sameeyno programkan. aan soo kicinaynaa editorkeeni okay loo soo kacay editorkii header files kan qornayna aan baananay saddex array kood data noo hayso iyo array laba data inoo hayso iyo array saddexaad oo labadaba lagu shubi doono. array koowaad size-kiisa maadaama user soo gelin rabo waxaan ka dhignay 100. sidoo kale array 2 idana size-keeda waxaan kaloo ka dhignay 100. sidoo kale array 2 waxaan ka dhignay 100. saddexda array waxaan siinay size-kooda. waxaan kaloo u baahnaanay size 1 size-ka guud array noo qabto array 1 oo size-keeda ah iyo array 2 oo size-keeda. sidoo kale waxaan u baahnaanay look. okay marka hore userka waa inuu soo geliyaa size of array 1 enter size of array 1. size-ku soo geliyo waxaan ku qabanaynaa size 1 variable-ka meesha noogu declaration. kadib waxaan adeegsanaynaa loopka aha noogu bilaabato 0 ay intay ka yartahay size 1 I plus plus. kadib waxaan dhahaynaa scan f stage e array 1 I abersan halkan ka tagnay si noogula qabto array 1. array 1 wixii soo geliyay userka aan soo qoray. array 2 sidoo kale waxay la mid tahay array 1 meeshaan array 1 aa soo kubeysiina. sidoo kale waxaan leenahay enter size of array 2. soo geli size of array 2. markaan saas waxaan noo qabanahay size 2 s2 ayaan ku qabsanay ay intay ka yartahay size 2 array 2 noo qabto. markaan labada array waa soo gelinay waxaan rabnaa inaan ku shubno arrayga saddexaad. arrayga saddexaad markaan ku shubano waxaan leenahay size guud waxay la mid tahay size-ka arrayga koowaad oo lagu daray size-ka arrayga labaad. sidoo kale waxaan u baahnanay variable noo qabto indexka index laba sii midaqdo 0. okay labada array markaa isku darnay waxaan leenahay for loop ayaha ka bilaabato 0. arrayga ugu horeyso ayaa ku shubayna arrayga saddexaad. arrayga ugu horeyso I intay ka yartahay size 1 ilaa size 1 kinto ka yaraa noogu shub I plus plus. okay waxaan leenahay arrayga saddexaad oo ah arrayga saddexaad indexkiisa oo 0 ah. indexkiisa soo qaadanaya index waxa noogu jirto 0. index 0 arrayga saddexaad waxaa ku shubtaa
array kuwaad oo indexkiisa ah 0 indexkiisa I markuu yahay waa 0 soo ma ilaa oo size kale ay kaana waxay ugu shubtaa array indexka marka waa 0 si oo +1 loo dhaho oo maanto dhan u shaqeeyo aan dhahna index plus markuu dhamay kadib index wuxuu ku istaagayaa halkuu ku egyahay size oo array kuwaad kadib waxaan leeyahay hadana waxay ugu shubtaa size labaad I haka la mid noqoto 0 I intee ka yartahay size 2 I plus kadib inta wuxuu noogu bilaabayaa array 3 index waxaa ku shubtaa array 3 index waxaa noogu shubtaa array 2 ayada ka bilaabato I indexka meeqoo ka bilaabana indexka wuxuu ku egyahay size-ka koowaad meeshuu ku egyahay indexka marka eber ma noogu bilaaba markaan wuxuu noogu bilaabaa meeshuu ku egyahay arrayda koowaad indexkeeda ayuu toos ugu bilaaban kadib waxaan sameynaynaa oo wada daabaceena marka 4 I hala mid noqoto 0 I hala mid noqoto markaan dhammaan aan rabaa inaan wada daabaco labada size oo isku diro waxay la mid noqonaysaa markaas s I inta ka yarta s I plus saan u wada daabacno printf %d array 3 I intaas aan kusoo koobaynaa waan eegaynaa markaan aseef garaysanaynaa jin waxaan garaynaynaa meeshaan waxaa ka tagnay semicolon sidoo kale halkan waxaa ka tagnay semicolon meel kastaa semicolon ka tagta asiga kuu soo qaban size-ka arrayda kuwaad waxaan aan 4 waxaan soo gelinay 1 2 3 4 size-ka array labaad waxaan dhahnay 5 waxaan soo geliyay 5 6 7 8 9 waxaan rabnaa 1 ilaa 9 inaan noo soo daabaco saa u jeedna waxaa noo soo daabacay 1 2 3 4 arrayga labaad wuxuu nagu soo daabacay wuxuu keliya noo soo daabacay arrayga kuwaad problemka halkoo naga haysta marka aan ogaano problemka halkoo naga haysto daansan ugu soo laabano halkan buu naga haystaa indexkan markuu intaan noogu ekaaday index 2 ma kala shaqeyn index 3 plus ma dhihin intaa marka waxaa nooga maqan index plus inaan dhaha dabcan indexkan markuu isku shubo array 2 si dhaqaaqa meeshiisu taagay waa ina index plus aan halkan sidoo kale se noogu cadaad inta aan dhahno /n1 intan aan dhahno /n haddaan garaynaynaa marka array kuwaad size-kiisu waa 4 1 2 3 4 array labaad size-kiisu waa 5 5 6 7 8 9 saa u jeedaa marka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilaa 9 oo noo soo daabacay dhammaan arrayda dhan oo noo soo daabacay labada array ayaa isku keenay waxaa loo yaqaanaa margin array intaan waxaan leeyahay hal mar noo kala bix mar kalean ku celinaynaa size koowaad waxaan dhahnay 5 10 20 30 40 50 size-ka labaad waxaan dhahnay 3 bis 60 70 80 waxaan rabnaa in la soo daawaco 10 20 30 40 50 marka la gaaro in lagu xijiyo 60 70 meeshaan 70 iyo 80 in intaas noogu xijiyo rabnaa 10 20 30 40 50 60 70 80 oo jeedaan hal mar waxaan u dhaxaysiinaynaa display printf display all arrays array kuwaad waxaan dhahnay size-kii 3 waxaa waaye 5 10 15
array latticekiisu waxaan dhahnaa 4 20 25 30 35 maxaan rabnaa in la soo dhaado 5 10 25 20 25 30 35 ilaa laas in la soo dhaado saa u jeedaan display all array 5 10 25 20 25 30 35 waxaa loo yaqaanaa merging two arrays waxaan isku keenay laba array array 1 oo ku jirto daatada ku jirtay array 2 daatada ku jirta wax isku keenay array 3 intaas ayuu noo eegaa programkeena alla barnaamijku halkan ugu soo diyaariyay anigoo ah Jiraa Bayish Maxamed Xasan oo ku mahadsantiin sida wanaagsan ee barnaamijkan ula socotiin tan iyo inta dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Barashio, you